inta aanu iman safaradii iyo hawlihii aad gobolada bariga Somaliland aad ugu maqnayd maalmihii ugu dambeeyay waxa jira ergooyin dhexdhexaadinaya xukuumadda Somaliland iyo xisaabta mucaaradka waxa la hadalhayaa in muddo kordhin ay dhacdo ugu horeyn aad waxaad ku jirtaa danayaasha ururada waliba ururbaad ku dhawaaqday xafiisyo furtay shaqaad waday balse aad aragtay hadii muddo kordhin dhacdo aad baad maadsantahay Luqmaan adiga iyo teamka MMTV baad baan u salaamayaa waxaan rajaynayaa next time kan studio-hiina ku soo booqday iyadoo idila joogo madaxii TV-ga oo hadda idinka xidhan inuu xorriyadiisa la rajaynayaa su'aasha sida waragtaa waxaan u arkaa anigu horta marka hore ma arko meel laga soo gali karayo su'aasha aad weydiisay oo ah muddo kordhin wax la yiraahdo iyo negotiation noocaas oo laga galo waxyaabaha ay xeerarka iyo heshiiska bulsho ay inoo qeexeen mar hore marka laakiinse haddii ay dhacdo waxaan u arkaa nasiib darro weyn oo aan Somaliland aan u keenin horumar siyaasadeed midnimo bulsho iyo kalsooni shuruuc dambe oo la raaco midnaba ururadiina siyaasadda wax la leeyahay doorashadiinani waqtigeedu sharci maaha xisaabta mucaaradku in badan ku doodayaan idinkuna waxaad ku doodaysaan ma ee doorashadu waa inay ka soo horumartaa sida madaxtooyadu qabto ta madaxtooyadu ka soo horumarto bal qodobada sharciga Cabdirasaaq Ibrahim Maxamed Taasho aad adeegsanaysaan aad ku doodaysaan bulshada ku daawan soo sharax horta marka hore qodobada sharciga wixii sharci ku saabsan ee la isku hayo labada dhinac wuxuu wadankani leeyahay nidaam loo maro oo lagu turjumo shuruucda lagu kala aragti duwan yahay ma laha meel ay ka soo galaan madax dhaqameed iyo ergooyin kale waxaa loo samaystay sidiisaba xeerarka iyo shuruucda bulsho ee yaalla waxaa loo sameeyey in lagu kala baxo ayna hagaan dhammaan hadafyada iyo jaangoynta siyaasadeed ee dalka marka qof walba oo Somalilander uu ka dheragsan yahay xeerka wadankan yaalla oo ah in cimriga ururada ama xisbiyada ay tahay 10 sanadood 6 bilood ka horna in la furo muddadaas 6 biloodna iminka waa lagu jiraa ma garanayo mana arkin weli qof Somaliland ama muxaafid ha noqdo ama mucaarid oo dood sharciyeed ka qaba in cimriga xisbiyadu inay 10 sanadood tahay iyo in 6 bilood ka hor ay dhacayso diyaar garowga oo la furayo tartankii maxaan ku sheegaa ururada tiibana lagu jiraa wax kale oo meeshan yaalo oo anigu aan arko ma jiraan haba yaraatee uma baahna turjumid kale wax kalena uma baahna qofka de oranaya cimriga maaha xisbiyadu 10 sano iyo qofka oranaya xeerkeenu ma qorayo 6 bilood ka hor in ururada la furo kaasa laga doonayaa inuu turjumo xeerka isagu uu hayo iyo sidoo uu arko xisbiyada mucaaradku way ogolyihiin 6 bilood ka hor la furo laakiin waxaa la isku hayaa doorashada madaxtooyada ee 11 December dhacaysa iyo doorashada ururada ee 11 November dhacaysa iyo doorashada ururada December dhacaysa ayay qabaan xisbiyada mucaaradku in doorashada madaxtooyada soo horeyso adu maxaad qabtaa waxaan golayaal dhan baynu u samaysanay xeerar baynu u samaysanay maxaynu isu tacab khasaarinaynay haddii ay noqonayso saasay ila tahay doorasho kasta oo madaxweyne mas'uuliyadda koowaad waxay saaran tahay madaxweynaha qaranka ee markaa jooga iyo xukuumadda markaa talinaysa in xilligeeda ku qabtaan haddii ay dhici weydo siday doonto ha u dhici weydo xeerarku waxay siiyeen raadad iyo dariiqooyin kale oo la raaco institutions dhan oo dalkan ka jirana waxaa loo askumay oo loogu talagalay inay ilaaliyaan xeerarka marka anagu taasaan ku taaganahay anagu waxa la soo hormariyay iyo dib ha loo dhigo midna kama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayaa xeerarka dalkan u yaala waa inaan dhanna looga bixin doorashada haddii ay waqtigeedii ku dhacdo waa sidii loogu talagalay oo dalkan madaxweynaha dalka jooga xilli buu leeyahay sida ay xisbiyadu xilli u leeyihiin laakiin justification buu siiyey haddii la kordhinayo muddada waa in la qaadaa tallaabooyinka ABCD institutions baa jira marka arrintaa qaabilsan oo golayaal leh golo gurti leh oo leh maxaan ku sheegaa maxkamad sare leh oo maxaan ku sheegaa marka meel laga murmi karayo anigu ma arko haddii siyaasadda Somaliland ay dib ugu noqoto in looga wada hadlo si beelaysan ama nidaam beeleed waa inaad ogaataan dadka reer Somaliland way waxa future-kooda lagu ciyaaraya waxa maqaamkii iyo garashadii wanaagsanayd la foorarinaya waa dadka dhalinyarada ah ee mutacalimiinta ah ee la rabay dalkan inay iyagu noqdaan kuwa hagaya iyaga kuwa jaangoynaya dalkan mustaqbalkiisa kuwaas aan u arkaa in madaxooda manjo loo rogayo
so uma arko anigu negotiation meel dhexe wax laga baarbaari karayo waxaan arkaa xeerarka aynu dhiganay in lagu ekaado kuwaas wixii turjumad u baahan in la turjumo laakiin aan meel kale lagu meereysan anu saasaan qaba cabdisaaq Ibraahim Maxamed xubno urur furto adoo aad ka mid tahay waxa lagu eedeeyaa in gacan saar la leedin madaxweynaha Soomaaliland waxay tamar baabad kulan la qaadatay madaxweynaha adiga xubno kale ma jirtaa in madaxweynaha Soomaaliland adiga iyo xubno kale dabada uu ka riixayo oo uu ka dambeeyo inaad ururadan furtaan horta dadka marba cidda madaxweynaha iyo dawladda ay iska soo horjeedaan de way oran kartaa sidaa oo haddaba de xisbiyada mucaaradka marba sidaas oo kale ay ahaayeen oo ururo iyagoo la furay oo isla waliba xisbigan maanta talada hayaa uu furay sidaas oo kale loogu eedeynay lolahaa xukuumadda iyo xisbiga talada hayaa dabada ka riixayay maantana waa xisbiye qaran oo ku dagaalamaya isla sidii iyagu ay ku yimaadeen marka horta waxay ku soo koomaysaa sheegashada noocaas waxaan arkaa inay aad raqiis u tahay meeshan ma sharci baan oolin in ay ururadii la furo haddaanu oolin waa in ay hay-adaha ku shaqada lihi arrintaa ay ka hadlaan ka jawaabaan haddii uu sharcigii yaallo oo ay tahay xilligii ururada la furi lahaa annagu xuquuqdayadii baanu ku taagannahay dowladduna waxa keliya ay samaysay waa in ay fulisay xilligii iyo wakhtigii oo shuruucda iyo xeerarka dalkan u yaalla ay fareen inay ururada ku furaan tii bayna waafaqsan tahay gacansaar kaloo annagii dowladda naga dhexan karaa ma jirto sababtoo naga dhexan karin waxa weeye gacansaarku horta xawu ka imaanaya sida aanu qof kasta iyo xisbi kastoo mucaarada u tartamayno berri ayaanu u tartamaynaa iyagana wax kale oo ay nagu caawin karaan ma jirto cidda arrintan xaakimka ka noqonaysaana waa shacabka reer Somaliland marka bal waxa baana garanayninba uu xataa hadday wax nala jecel yihiin ayna tari karaan uu garanba maayo xukuumadda iyo dowladda iyo madaxweynuhu toona laakiin muhiimaddu waxa weeyaan kaliya waxaanu isku dhinac ka nahay dowladdu inay fuliso heshiisyadii bulshada yaallay oo ururada in la furo waxaanu annagu markaa in favor u nahay tallaabo kasta oo arrintaas ku saabsan oo dowladdu ay ku xoojinayso in ay sidoodii ururada u furmaan xagga isku jaal baanu ka nahay laakiin kama nihin wax kale oo aanu kaga duwanahay dadka kale reer Somaliland xisbiyada mucaaradku maanta taasoo kale bay dhinac kale waxay u arkaan in ay iyagu ay tahay in kaligood ay doorasho galaan oo hadday doonto shahaadadooduba ha dhacdo oo December haddaba marto laakiin in aanay cid kale doorasho la gelin marka taana horaan uga hadlay waxaan odhan lahaa anigu uma baahna arrimahan oo kale muran iyo mindimidi ku taag dalkeennuna waa dal aan ka bixi karin arrimaha noocaasa waxaan anigu leeyahay waa in xayndaabka dib loogu noqdo waad ogay dalkeenna mudaharaadaal baa ka dhacay dhibaatooyin baa dad soo gaadhay rabshadaa dhacay uma arko anigu dadka reer Somaliland maanta inay chance iyo waqti u hayaan in ay maanta oo adduunka oo dhan laga baqayo crisis oo already la galay crisis maciishadeed mid shidaal mid amni oo caalamka oo dhan uu diyaar garoobayo survival iyo inuu badbaado anigu ma arko meel kursi ku bedel loogu dad inaga dhintaan ama aynu bulshadeena iyo dalkeena aynu ku mashquulino anigu ma arko mabda'a siyaasadeed ee maanta bulshadeena ku fikiraysaana ideologiyad siyaasadeed anigu ma arag totally xisbiyada ku doono ha noqdo waxaan arkaa anigu kaliya kursi lagu bedelayo iyo qof raba inuu qof bedelo laakiin anigu taa way ka duwan tahay mabda'aygu anigu waxaan u arkaa in mujtamaca nolol loo abuuro waxaan u arkaa in ideologiyad laga hadlo mid barwaaqo in laga hadlo mid horumarineed in laga hadlo oo dadkan halkaa loo jiheeyo laakiin in maanta oo dhan lagu mashquulo keliya doorashadii waa inay dhacda iyo waa inayn dhicin anigu sax uma arko waayo doorashooyinkii horeba way dhici jireen wayna habsaami jireen dhibaatooyinna ma dhici jirin maxay tani kaga duwan tahay marka anigu uma arko xajmiga ay leedahay waxa ina hor yaalla mustaqbalkeena iyo xajmigan political maaragtay conflictiga jira isuma miisaana saan qaba anigu dadka kugu dhaliilaya inaad madaxweynaha Somaliland gacan saar ama dhabar taabasho ay jirto waxay soo qaataan tusaalahan habeenkii 18 May xisbiyada mucaaradku waxay baneeyeen madaxtooyada kala qayb galaan munaasabada aadna waxaad fadhiday kursiga saddexaad ama afraad ee madaxweynaha ku xiga taasna wuxuu arkay inaad hadhow markaad soo baxdaad noqonayso xisbi muxaafida oo saasoo kale xukuumadda uga agdhow taa maxaad kaga difaacday horta kow caawaba waa 26ka maxaan kuu sheegaa June waana tegayaa xafladda 26ka June maalmaha qaranka dawladdu leedahay qof male madaxweyne male ciidan male cid gaar male
waxaa iskale dad iyo dal la yidhaahdo somalilan iyo somalilanders sidaasaan caawana u tegaya habeenka horena u tegoo leegu casumay 2 waxaan ahay qof waddankan matalaad rasmi ah oo dad mujtamac reer somalilan oo aqoon-yahan leh oo deegaano leh oo dhalinyaro leh oo dad maskaxda xor ka ah leh u ah maxaan kuu sheegaa role model siyaasadeed oo doonaya dalkan isbedel dhab inuu ka yimaado marka dowladuna xilligaas kursiga iyo meeshaan fadhiyay anigu macnaheedu ma sameynay waxa macnaheedu sameynaysay inaan maalin qaran aan tegay caawina tagi doono haddii damka ilahay ka dhigo cabdirasaaq aad baad mahadsan tahay cabdirasaaq taash gudoomiyaha warsaaseedka waa beri dhowaan guddida kala saaridda ururada iyo ansixinta xisaabta qaranku waxay shaaciyeen wakhtiga iyo muddada ay furmayaan ururada siyaasaddu ka waa beri ahaan sidaad u aragtaan mowqifkiinu annagu aad baan u soo dhawaynaynaa runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa guddiga jaantuska iyo habraaca ay soo saareen wakhti dheer baanuna soo bilownay diyaargarowga diyaar baanuna inaanu si mugla uga qayb gallo haddii lahaydmo waxaanuna noqonaynaa haddaanu nahay reer waaberi cidda ugu horreysa ee ka faa'iidaysata ee fulisa awaamiirta iyo habraaca la soo saaray ee ururka ay soo saareen gobolada beriga somalilan ayaa tagtay oo deegaan ahaan ka soo jeedo ceerigaaba marka laga bilaabo ood shirkii beelaha halkaasi ka qabsoomayay aad ka qayb gashay xidhitaankiisa sidoo kale waxaad tagtay deegaanka aad ka soo jeeday laascaanood madax dhaqameed badan ayaad tirisay muxuu ahaa nuxurka shirarka iyo safarkaaga aad gobolada bariya ilaa markii dambe burcad kusoo gaadhay wuxuu ahaa marka ugu horeysa horta shir saad sheegtay shir ballaadhan oo ay dowladda somalilan iyo beesha beel ka mida beelaha gobolka sanaag oo beesha warsangeli ah ayaa halkaa shir ballaadhan uga socday muddo dheer oo shirkaas oo beesha warsangeli ay rabtay in ay si mugle ay somalilan ay maxaan kuu sheegaa waxyaabii tabashooyinkii siyaasadeed ee jiray ee u dhexeeyey beesha iyo dowladda somalilan in lagu soo afjaro laguna soo afmeero baahiyahoodii beeleedna ay somalilan usoo bandhigaan anigana kaasaa si official laygu casumay madax dhaqameedka iyo odayaasha iyo gurtida u dhashay deegaankaasi ay ugu casumeen waana uga mahadnaqaya wuxuuna ahaa oo laftigeedu de ay ka tirsan tahay oo gobolkaasi iyo deegaankaasi haddii si gaara loo yidhaahdo deegaanada iyo gobolada aan si gaara u tirsanaya inaan ugu matalo platformka siyaasadeed ee somalilan waqti xaadirkan taasi casumaduna daaranayd shirka iyo kuwo kaloo ka dambeyn doona iyo guud ahaan somalilan iyo deegaanada iyo beelaha aan ka soo jeedaa sidii ay iyagoo dhammaystiran somalilan qayb uga noqon lahaayeen siyaasadeeda ay daaranayd aanuna ka wada hadalay aanuna isla meel dhignay deegaanka laascaanood markaad joogtay madax dhaqameedka hormutiyad bay soo saareen taageeray ku muujiyeen hadda beriga hore deegaanadaas bariga somalilan weliba gobolka sool iyo meelaha kale ka sisheeya deegaanada adood ka soo jeedo ismay diiwaan gelin jirin doorashadan aada ugamay qayb qaadan jirin bise hadda dadkaasi maxay doonayaan waa su-aal aad u fiican luqman waana kaaga mahadnaqayaa waxay doonayaan horta wax walba waxay leeyihiin xilli ay bislaadaan timekuna isagaa ummadda bisleeya dabcan waktina waan gelinay annagu waxaan nahay dad xidhiir lale bulshada dhaqan iyo aqoon-yahan intaba muddadaa aan siyaasadda dib ugu soo noqdayna waxaan ka shaqaynaynay in dadkeennu ay u bislaadaan siyaasadda isla markaasna deegaamadaasi ay si buuxda uga soo mid noqdaan dalka iyo dadka ay wax la leeyihiin ay ka mid yihiin reer somalilan tii midho dhalkeedii bay ahayd tii aan ceerigaaba ku tegay iyo tii laascaanood aan ku soo maray iyo tii gobolada kale aan ku soo maray ee gobolka togdheer iyo gobolka maxaan kuu sheegaa caynaba ee saraarba oo iyadana aada ogeyd sidii laxaadka lahaa ee runtii naloogu soo dhoweeyey marka isku soo wada duub gobolada bariga oo dhan waxaa jirta saameyn qawad siyaasadeed oo xagga horumarka ah iyo gaar ahaan deegaanada qaar oo ah xagga xataa awood qaybsiga dalka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin in si national level ah oo si dowladnimo ah oo si qarannimo ah kor loogu soo qaado loona bisleeyo dadka sida ay ula xaajoon lahayn ugana mid noqon lahayn sistamka somalilan kaas weeye kan marka odayaasha isu xilqaameen dhaqanku qaarkood inay ku dhexdhexaadiyaan mucaaradka iyo dowladda waa arrimaha aan isleeyahay waa khatar weyn baa ka imaan karta haddii ay ka hoos dhacaan sida wax yihiin
oo waxaad moodaa in aanay lagu baraarugsanayn weli inaynu matelno oo aynu degelnahay dal la yiraahdo Somaliland oo ay ku nool yihiin nations kala duwan iyo ardaayo kala duwan marka in arrimaha noocaas iimaanka lagu hayo u baahan tahay Somaliland meeshay maanta maraysan hore aan u sheegay waa isgoys weey waxaana laga rabaa dadka aqoon-yahanka gaar ahaan dadka dhalinyarada inay ku baraarugsanaadaan oo ayna kala dooranin qabyaalad iyo dad kuraas kaliya ka hadlaya iyo qaran inaan kala dooran ee la doonayo in ay maskaxdeenu u bislaato nation wax la yiraahdo dal danaha aynu ka hadlaynay ee dawladnimada qaabka kaliya ku kobci karaan waa inaanu raacno xeerarkii hore inoo yaalay wixii aynu ku kordhin karana aynu ku kordhino cabdirasaaq ibraahim maxamed ataash marka laga yimaado inaad tahay gudoomiyaha siyaasadeedka waa beri waxaad ka mid tahay dadka maalqabeennada reer Somaliland Somaliland 30 sano ay jirtay dheeraad dadka maalqabeennada sidaadoo kale siyaasadda toos ma geli jirin waxay dabada ka riixi jireen xubno kale oo ay saameyn ku yeeshaan maxaa kugu kalifay adiga in hadda siyaasadda toos u soo gasho oo aad hankan yeelato luqmaan horta waa inaan ogaano qof shaqaysta oo bariiskiisa la soo baxa horta qof walba waa maalqabeen alxamdulilah qofka caafimaad qaba maalqabeen weeye qofba intuu raba ha haysto wixii ilaahay siiyey waa ku maalqabeen laakiin qof kasta oo waddankan u dhashay wuxuu leeyahay xuquuq dhammaystiran oo ah inuu siyaasadda ka qayb galo labo qofku hadduu hibo leeyahay uu u arko inuu wax qaban karayo iyadana waa u sii furan tahay oo waxay tahay inuu ka qayb galo aniga gaar ahaan waxa ii gaarkahay waxaa weeye haddaan si saxa uga jawaabo waxa weeyaan anigu inta badan ku noqoshada siyaasadda aan ku soo noqday waxay ku salaysan tahay in aan isleeyahay Somaliland waxbaad ka bedeli kartaa habkeeda dhaqan siyaasadeed ee 30 sano ee la soo dhaafay lagu dhaqmayay kaas oo aan u arko mid si u shaqeeya traditional ah ama hab dhaqan ah oo aan ku salaysnayn siyaasad la rabo dunia casriya iyo dal dadkiisu ay wax barteen in lagu dhaqo marka qofkuna waa in uu tijaabiyo waxa uu go'aanayo ee laabtiisa xoqaya talabaad kale ee taa ii dheer hadana waxa weeye dadka iyo deegaamada aan ka soo jeedaa muddo dheer waxay qabeen tabasho Somaliland ay u qabaan in ay si ay uga mid noqdaan dalkan ay iyagu leeyihiin ee Ilaahay ku abuuray laakiin ay tabayaan oo ay u arkaan in albaabada iyo daaqadahaba mar hore laga xidhay oo aanay lahayn meel dambe oo Somaliland chance uga furan yahay dadka inay ka soo galaan siyaasadda taas waxay keentay markaa in aan isu taago in aan kuwaana himiladooda xaqiijiyo dadka reer Somaliland ee wadaniyada ku jirto ee aqoonta u saaxiibka ah ee indheergaradnimada u saaxiibka iyagana waa yeeliya dhalinyaro ka yihiinba in aan ku tijaabino in aanu himilo aanu leenahay aniga iyo kumanaan kun oo kale oo ila mabdii in dalkan siyaasaddiisa wax laga bedelo oo aan qof iyo kursi la doorane la doorto mabda iyo hab dhaqan hufan oo siyaasadeed oo akhlaaqiyad diineed mid aqooneed iyo culture wanaagsan ba ku salaysan ugu dambeyntii cabdirasaaq ibraahim maxamed ataash gudoomiyaha siyaasadda waa bari MMTV ku mahadnaqaya siyaasiyiintu marka ay doonayaan in la doorto ballanqaadyo sameeyaan hadhowna ma fuliyaan adigu maxaad maanta ballan qaadaysaa inaad bedelayso oo rajaynayso inaad bedesho haddii aad ku guulaysato hamigaaga horta kelmadda aniga waan ka reebayaa aniga iyo dadka aan isku fikirka noqonay waa bari mabdiisa aan ku midownay oo reer Somaliland gobol walba jooga maanta waxaanu anagu ballan qaadaynaa mabda ayaga aanu leenahay ee ah inaanu dawlad wanaagsan oo hufan oo la tartanta dadka iyo dalalka dhigooda inaanu Somaliland u jihayno siyaasadeeda haddii aanu guuleysano heer xisbi iyo heer dawladeed midkay doonto ha noqotee waxyaabaha aanu ku ballan qaadano inaanu taa fulinayna waxa weeye annagu ma dhisayno siyaasad qof laga dooni doono inuu fuliyo waxaanu dhisi doonaa siyaasad daadegsan oo la delegate gareeyay oo qof walba oo kamida ururkayaga iyo mabda'ayaga iyo xisbigayaga uu bari waajib ku tahay inuu fuliyo qadiyadii aanu qaadnay oo xeerarkayaga iyo manifestkayaga dastuurkayaga aanu ku qornay marka waxaan rabaa inaan cadeeyo kama leexan doono waanu ballan qaadaynaa haddii eeba idmo in aanu isbedel dhab ah ka sameeyno Somaliland oo xagga fikirka siyaasadda aad u masan tahay cabdirasaaq ibraahim maxamed ataash ee wareysiga xarunta MMTV